halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xaaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taala warka xiisihiisiyo xaaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taala waxaa laga xishoodiyo xanta kuma mashquulo runtu xanafka sheega waa xaruuri daacada iyo xaji adagoo alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taala waxaa laga xishoodiyo xanta kuma mashquulo runtu xanafka sheega waa xaruuri daacada iyo xaji adagoo alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taala waxaa lagu xasuustaa faalooyin xalan iyo xogagaalo badanoo alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taala waxaa lagu xasuustaa faalooyin xalan iyo xogagaalo badanoo alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taala barnaamijkeennu caawa wuxuu noqon doonaa nabadgelyada somalilan adduunka ku majeerto ee ku badhaadhay oo xisbiga waddani ay mar walba dhibayso oo ay mar walba ka hadlaan caddaynteediina la hayo waxaa ugu dambeeyey oo xalay khudbadeeyey cabdikariin axmed mooge oo sheegay inuu u sharaxan yahay xildhibaan golaha deegaanka ee caasimadda doonayana weliba inuu maayar ka noqdo oo duqa magaalada hargeysa ama caasimadda somalilan u noqdo oo hadalla gefa oo meelka dhaca oo ammaanka ka soo horjeeda oo nabaddu dhibayso haddii alla kuu roon yahay shirka la yimi arrintaasan doonaya inaan ka hadlo qasab baana noqotay inaan ka hadlo cabdikariim xalay toole wuxuu ka khudbadeeyey madal dhallinyaro badan isugu timi dhallinyaradaasoo in badan isku dayday inay dadka kiciso oo ay dalka kiciso oo ay rabshad geliso oo ay dhibaato geliso ayagoo mar walba magacyo kala nooca la baxayey badankooduna xisbiga waddani ka mid ahaa ka tirsanaa wejiyo badan ayuu xisbigu leeyahay mar waxa uu noqdaa xisbi mar waxa uu noqdaa ururo kale mar waxa uu noqdaa jabhad mar waxa uu noqdaa garxajis dhowr iyo 10 magac buu sheegtay waxaan ogahay oo kale in dibadaha qurbaha taageerayaasha xisbiga waddani maalin walba urur ay kaga dhawaaqi jireen especially dalka ingiriiska oo kale waxaasoo dhammi waxay ku taxalluqayeen uun mucaaridad ay doorashadii keentay oo dadkii aan waxba la weydiin jirin ee aan talin jirin ee iska magaranaysaa makasta ahaa ay heleen platform ay ka duulaan ama meel ay ku dabaalanayaan oo bilaa hoggaana oo ciddii hoggaamin lahayd ee odhan lahayd ka fadhiista ummadda ay magaranaysaa ayay kuwaa daba gashay muhiimka aan u soo qabsaday ama aan caawa ka hadlayaa waxa ay tahay nabadgelyada anigu cabdikariin ku dambayn doona xisbiga waddani madax iyo mijaba waxay mar walba ka soo horjeedaan ammaanka waxa mar walba dhibaya ammaanka waxaynu ogeyn inay doorashadii ka bacdi haddii alla kuu roon yahay isku dayeen inuu dagaal sukay dalka ka dhaco waxaynu ogeyn in jabhado la maalgelinayo oo ay xisbiga waddani maalgelinayaan oo ay dhaqaalaha ururinayaan oo ay muusanaabayaan oo ay dadka dhex marayaan ay lacag ku ururiyeen rasaas iyo hub la siiyey
oo ay dabada geliyeen puntland iyo qardho waxaynu ogeyn in laga soo saaray oo nafla caaridkii ay la soo galeen tabca oo dowladdu caqli kaga dabaalatay oo haddii alla kuu roon yahay ay furdaamisay dowladdu caqli iyo hoggaanka dhaqanka ee reerku ay furdaamiyeen ilaahay caafimaad taama ha siiye uu qaybta ugu weyn ka qaatay suldaan maxamed xirsiqani iyo suldaan cabdiraxmaan good oo nool isaguna caafimaad aan ku ogaa ragga noocaasi ay ka qaateen qayb libaax iyo dowladda oo iskaashanayay waxaan ognahay in haddii alla kuu roon yahay hoggaanka xisbiga ugu sarreeya oo uu kow ka yahay ninka musharaxa labaad lagu sheego ee ka soo jeeda gobolka awdal degmada dila uu shirweynihii xisbiga ka yidhi qori baanu wax ku doonaynaa iyo jabhada raja abuurayaanu samayn isagoo markaa ammaanka ka soo horjeeda ninkii kursiga ugu sarreeya doonayay somalilan waxaan u sheegaynaa waa jabhado rajo muujinaya somalilan ee maaha jabhado duminaya somalilan nimanka dalka xukuma madaxweynaha iyo maxamed kacin waxaan u sheegaynaa hadday qalinka iyo aqoonta iyo nabadgelyada dhegaysan waayeen oo ay ka soo noqon waayaan sida ay u fikirayaan dee qorigaa la qaadanayaayo qorigay yaqaanaan waxaynu ogeyn dhowaan in xogeeyaha xisbiga wadani ninka yaree khadar la yidhaahdaa uu lahaa nabaddu agteeda waxba kama aha iyana waa qodob ala hays cunin ilaa nabad baynu haysanaa alxamdulilah laakiin nabaddu wax lagu faana aniga agtayda kama aha waayo xayawaan ma nihin dad baynu nahay bini'aadam waxaynu ognahay oo iyana ay xalay talo u dambeysay in cabdikariin axmed mooge uu nabaddii ka soo horjeestay oo uu dadka dhiiri geliyey oo uu yidhi hargeysada iyo burci kama wanaagsana kuwa aydhaydhkii badda yare la caabudayo maxay raggii innagoo kala ahaa ay hargeysa u dumiyeen inay xorriyadda u siisteen burca u dumiyeen inay xorriyadda u siisteen berbere u dumiyeen inay xorriyadda u siisteen ma magaalo ka wanaagsan mayo isla yaaba arrimaha masiiriga ah eed u baahan tahay xorriyaddeena ninka taataabta somaliland buu taataabanaya war cabdiraxmaan cidna ku xidhi mayso isagoo dadka ku dhiiri gelinaya inay nabadda ka soo horjeestaan oo nabaddu ay dhibayso oo kicin wada inta la joogtay oo xalay kaa qudbadaynayna waa kuwii baaq shacab la baxay ee ayaguna dadka kicinayay waxaa dadka lagu kicinayaana maaha wax dhibaato oo dalkeena ka taagan oo aynu ognahay ma jirto waxa kaliya lagu kicinayaa waa dana shakhsiya ama kursi la doonayo ama hunguri nacayb keentay qof qura oo riisan waddankaa loo burburiyo ama loo kiciyo dadka ama dhibaato loo sameeya ama nabadda looga ay u dhibtaa ma jirto qofna u sheegi karaa ma jiro dadka adduunka ku nool ee wax qiimeeya ee carab iyo cajabba leh ama gaali iyo islaamba leh waxay qirayaan dhowr iyo kontonka dowladood ee maanta afrika ka jira in somalilan oon ictiraaf caalami haysani ay kaga horeyso dimuqraadiyaddii ammaankaba ammaanku waxa weeyaan waa qodobka koowaad ee nolosha markuu kaa yahay ee adduunka iyo diinta iyo ilaahay iyo cid waliba ay qirayso inuu ammaanku qodobka ugu muhiimsan nolosha uu yahay waxa ay u dhibayso xisbiga wadani ee mar walba ay u soo qaadanayaan ay u dhibayso nabadda somalilan ma garanayo marka ay taasi ay dhibaysayn ognahay qiraal yihiin ee afkooda ay ka soo baxaysa mar walba waxa ku xiga waa maxay ajanta qarsoon baa ku xiga qorshe u yaalla baa jiro ammaanka ay waddanka ku khalkhalgelinayaan ama ay ku ridayaan ama ay u qorshaysan waxa afka ay ka odhanayaan waa wixii u qorshaysnaa ayaa ka soo baxaya afkooda mahanigu waxaan ka samaynaya marka arrin laga aamusi karo maaha cabdikariin axmed mooge waxa uu in badan isku celcelin jiray isagoo u khudbadaynaya dad masaakiina ama caruur ama dhalinyaro aan garan karin waxa uu ku hadlayay nuxurka hadalka ka soo baxay aan qiiman karin wuxuu sheegi jiray inuu yahay nin qiimo badan isagoo isfaaninaya oo anigada hadalkiisu yahay dabeeto maatida iyo makasta iyo indhowgaradku waxay iska caashiqi jireen inan kaa yaree quruxda badan ee reerka caankaa ka soo jeeda ee maxamed mooge taariikhdiisii iyo axmed mooge ka soo jeeda ee haddii alle kuu roon yahay atooraha u eeg ayuunbay iska caashiqayeen dadku qof quro haddaad weydiiso tara ninkan maxaad ku caashiqa ma wuxuu sameeyo wanaagsan oo uu soo qabtay baa jira
ma qorshe ummadda uu hor keenay oo balaan wanaagsan dadka ku maamulayo oo wax ku doonayaa jira haddaad weydiiso qofku jawaabaya ma jira waa caashaqun iyo caadifad inta laakiin caqliga leh way qiimeyn karaysa cabdikariim wuxuu mar walba ku doodayay inuu yahay nin qabyaaladda ka soo horjeeda oo qabyaaladdu ay dhibayso oo dalkiisa horumar la jecel laakiin wax allaale iyo wax ka jiro xaqiiqi ma jirto hal qodob oo uu soo qaadan karo ama cid kale soo qaadan karto oo ay odhan karto kaasuu kaga dhabeeyna ma jirto because dalka dhacdooyin baa ka dhacaya intaa cabdikariim joogay dagaalo sokayaa ka dhacay oo qabaa'ilkeena isku dilayay reeraheena isku dilayay ceelaf weyn hadal bay u baahnayd nabad bay u baahnayd ka hadal bay u baahnayd qabyaaladoo la iska daayo laga wacyigeliyaa bay u baahnayd doorashooyin baa dalkiina ka dhacay lagu kala qaybiyey dadka oo cabdiraxmaan ciro oo maanta uu la jalay yahay cabdikariim uu ku kala qaybiyey oo uu yidhi aakhira codaysaya waa layna boobay iyadoo waxba ka jirin kamuu hadal xisbigiibaa isagoo xisbigii ah intuu magac qabiil noqday buur fuulay oo u soo hanjabay gaalkii faranjiga ahaa ee watay goobjoogayaashii doorashada ee caalamiga ahaa u hanjabay waanu dilaynaa annagoo qabiil hebel waanu dilaynaa way dhacdo kamuu hadal cabdikariim uma odhan war waa kala daaya qodobaa loo soo qoray dowladda aan qabiil weliba uu shirayo weligeed somaliland ka dhicin qodobaa loo soo qoray oo layidhi haddaan qabiil hebel nahay qodobadaas qasab dowladda ku qaado haddii kale wax soconayaa ma jiro qalad bay ahayd iyo gardarro kamuu hadal cabdikariim dhulka wuu joogay kuwii buurta fuulay baa haddana yidhi habar jeclay iyo habar wal ma arki karno qalad bay ahayd oo muu odhan waar ka daaya ma kala maarano kuwan aan leedin ma arki karnay doorashooyinkii dadka lagu kala qaybinaya dhacay dagaalaa dhacay jabhad aanu samaysanay oo qaadhaanka aanu bixinaynay dadka iyagu bixinayeen kuwa reerka iyagu weliba oo laga ururinayo la muusinaaba iyadoon waddanka balaaya ka dhacin oo waddanka lagula dagaalamayo ayaa jiro qardha iyo tabcaba lala galay kuwa lacagta bixinayay ajnabi mahayne ilmaadeeraday ahaayeen cabdikariinka kuwa ugu agdhow la fadhiya mar walbay ahaayeen kamuu hadalo war ka daaya muu odhan ina dhaqamaysay adduunka dabadiisaan joogo 70 goor baan ka hadlay qaladkii buurtaan ka hadlay gardaradaan ka hadlay khasaaraha inagu keenistaan ka hadlay dadkeena isku dilaya ceelaf weyn baan ka hadlay adduunka dabadiisana waan joogay isagoo xay buu haayo ninka afaanaya maalinna kamuu hadal kumana dhici kara inuu ka hadlo waan ogay anigu haddana isagunbaa iska faana kelmad loo soo joogsado oo uu dadka runta u kala sheegayo oo qabyaaladda ka soo horjeedsadaan meeluu ka yidhi iyo meeluu ka odhan karaa ma jirto ilaahayba uma dhalin oo calooladeegeeda iyo kartideedaba maba laha haddana waa kaa faanaya waxa uu inooga dhigay wax weyn inan yar oo afari meel ka tirinaya oo wax necab oo wixii uu necbaa afari kaga sheekaynaya bini aadamku inuu wax ku qiimeeyo kursiguu waayey ciduu sanifay maskabuu waayey manfacuu waayey iyo hungurigiisa iyo danihiisa khaaska ah dawo ma yeelato waxay wax ku wada qiimeynayaan oy ku odhanayaan dadku kacdoon buu u baahan yahay baaq shacab baa loo baahan yahay inuu madal kiciyaa loo baahan yahay markaa taa sabab kuma qancin karaan waxay ku odhanayaan 30 sanadood baa halkan lagu xanibay halkaynu maraynaa halkana waynu xanibanahay 30 sanadood halkaynu ka nimi waa halkeen dekan baynu ka nimi iyo meel siiro aan guri ka taagnayn oo waxba oolinoo la baabiyey alxamdulilah baan maanta maraynaa dowladihii jaarkaynu la tartamaynaa ee dhismaya waddanka jabuutidaasi intay xornimada qaadatay maalin qura balaaya kama dhicin maantana inaga kaga horreyna wax badan halkaynu ka nimi ninka garanaya halkaynu maraynana wuu garanaya iyo waxay noo kordhay halkii aynu ka tirsanaan jirrayna meel maanta aynu calaacalayno inaan ahayn ilaahay iyo ummaddiisu way og tahayoo waa meeshaa laysku qalanayo ee adduunka halkii ugu lidatay maanta ah nimanka waxaasoo dhan arkaya ayaa haddana ummadda ayagoon ka xishoonayn la soo hor istaagaya in nabadda aynu haysano la baabi'iyo oo nabadda ka soo horjeeda guud ahaan xisbiga waddani iyo waxa taageera ee kolba wejiyada kale inoo sheeganaya ee magacyada kale la baxay ee dhallinyarada in axmed moge ka dhex qudbadinaya ay ka mid yihiin ee aqoon-yahanka isu haysta iyadoon aqooni ka muuqan aqoontu haddaanay kaa muuqan wax la iska sheegtiyo waraaqa maaha aqoontu waa inay qofka ficilkiisa ka muuqataa waa inay garashadiisa ka muuqataa waa inay ka muuqataa dadka oo ay gartaan halkay ka yimaadeen iyo halkay ku socdaan iyo halkay taagan yihiin
marka la qiimeeyo dhowr iyo kontonka dowladda Afrika maanta cid naga horeysa qof inoo sheegi karaa ma jiro garan maayo hadday dimuqraadiyad noqoto iyo hadday noqoto amaanba meel ilaahay lagu mahadiyo ayaynu taaganay cabdikariin axmed mooge ayaan gelaya waan ka hadlaya ardaaga uu ka soo jeedo oo suldaankiisu u horeeyo oo xildhibaanka reerku ku jiro oo wasiirka reerku ku jiro waa ardaaga nagu hogaaminaya xisbiga xukuumadda maanta ee kuraastii ugu waaweyneed haysta ee wasiiradii iyo agaasimayaalba leh waxay xildhibaankooda ka sharaxeen labadooda xildhibaanba ka sharaxeen oo cabdikariinna deegaanka yahay ina finadna yahay baarlamanka waxay ka sharaxeen xisbiga kulmiye waa ardaagii madaxweynaha abtiga u ahaa ay isugu dhawaayeen cabdikariin ii geeyey buuri madaxweynaha maan jeclayn inaan sheego laakiin waan sheegaya maanta way ka fursan weyda inaan sheego midh beenna ku dari maayo xaqiiq isaguna aanu dafiri karin intii la joogtayna ay og tahay ayaan idiin sheegaya markii madaxweynaha loo tegey islaadiintii iyo odayaashii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradiiba ay u tegeen cabdikariin wuxuu yidhi madaxweynaha 3 nabar baan ka doonaya shuruudaha buu ku xidhay madaxweynihii qaranka iyadoo la fadhiyo goobjoog leeyahay haye waxaan kaa doonayaa xisbigoo layga sharaxo waa kow xisbigoo haddii alla kuu roon yahay qodobka labaad waxa weyn madaxweyne lacagta oo diga bixisay kharashka ku baxay doorashada laba qodobka saddexaadna waa inaad maayir ka dhigto saddexdaa qodob baan kugu weyn buuri madaxweynihii uu yaabo wuxuu ku yidhi qarankaan anigu madaxweyne u ahay dalabkii ka yimi ardaagana waan aqbalay in lagaa sharaxo xisbiga oo waan aqbalay anigu dowlad lacagteeda ayaan hayaayo kugu dhisi maayo adeero aabbahaa baanu ilmaabtinay adeer baan ku ahay somalilandta kale iyo wixeedii baan hayaa intaan adiga waxa dadku aanu hayo ummadda u hayo kugu dhiso kuwa kalena dee qadin maayo oo cadaalad maaha waxa weeyaan ku dhisi maayo lacag anigu aan ku dhisaya ma jirtee waynu isu war haynaayo hanti baad leedahay dee hantidaada isku dhiso u badheedh doorashaad galaysaa ta maayarnimadana waxaan kaa leeyahay xubin raadi maanta maayar inaad ka hadashaba sax maahe xilligeeda ha la gaadho maayar maanta aan kuu ballan qaadayo kaa dhigaya ama aan kaa dhigi karaana adeerow ma jiro intaa markii lagu yidhi cabdikariin isagoo faraha taagtaagaya ayuu shirkii ka baxay reerkiina madaxweyne way raali geliyeen waxay dhahdeen raalli ahaw madaxweyne annaga ayaa isku noqonaynaa ee naga warsug ama kanaanu dee isafgaran doonaa inu kuu soo celin doonaa ama ku kalaanu dee keensan doonaa sidii buu cabdikariin isagoo faraha taagtaagaya shir jaraa'id ku qabto kaga tegay reerkiina dee nin bay keeneen oo sharaxdeen walkii ku buuxsteen cabdikariin markan uu leeyahay musuqaan la dagaalamaya iyo waan idiin shaqaynaya waa ninkaa haddii alla kuu royay nabadiina dee aanu arkayna halku ka marayo ee maantaba colaadda iclaaminaya iyo dagaalka iyo dhibaatada ee kicinaya dadka musuqiina waa ninkaa isagoon kursigiiba gaadhin madaxweynihii qaranka ku yidhi lacagtaa ummadda aad u hayso iga dhis ee hungurigu ka galay lacagtii qasada dowladda ku jirtay inuu isku sharaxo ninka isagoon kursiba gaadhin musuqii bilaabay waa cabdikariin beenna ka sheegi maayo haddaan ka sheegaya ha ka soo jawaabo anaa ka garbaxaya musuqina kaasuu ka yahay cabdikariin mar walba khudbadihiisa wuxuu ku sheegaa inuu wax qabanayo waan idiin soo kacaya idin hurdadaan idinka kacaya bilaash baan idinku shaqaynaya wuxuu iska dhigaa qof aan dadka la mid ahayn oo wixii sisto oon waxba uga baahnayn waana ninkaa isagoo bannaanka jooga haddii alla kuu roon yahay musuqa raadinaya iyo xoolaha ummadda ka dhexeeya ee inuu isku sharaxo oo la siiyo oo qaraabakiil iyo qabyaalad lagu siiyo tijaabiyey cabdikariin isaga oo maayarnimo doonaya ayuu in badan idhaahdaa qashinkaan guraya waxaanaan dhisayaa waddooyin baan dhisayaa wax allaale iyo wax u qorshaysanuu dadka soo hordhigayna ma jirto bini aadamku marka uu doonayo inuu wax qabto waa inuu qorshe dadka la hor yimaadaa uu uga sharxo wuxuu qabanayo cabdikariin nin qorshe keenay maaha nin meesha uu ku socdo ee dowladda hoose yaqaano xitaa maaha laamahay u qaybsanto waaxyaheeda
kharashka isticmaasho shaqaalaha u shaqeeya intuu leeyahay nin ka war hayaba maaha hadduu saxan yahay wuxuu noqon lahaa nin wax soo qorshaystay oo waaxyaheeda sheega oo kharashkeeda sheega oo wuxuu qabanaya sheega oo halka kharashka qaladkii ku laba iyo halka u baahan in kharash lagu kabo labadaba ka sheekeeya oo waxa ay kuwii hore qabteen ay ku guulaysteen iyo waxa ay qaban waayeen kala yaqaanu noqon lahaa weli isagoo qorshe dadka uga sheekeynaya ama balaan maynaan arag sida carruurtun buu idhahdaa waa xashiishkaan idinla guri doonaa waa ay soo toosin doontaan wax wada aad u raqiisa oo sheekadii carruurta ah ayuu ummadda la hor yimaadaa taana waxaan leeyahay shaqo cabdikariin oo lagugu soo tijaabiyey oo haddii lagugu majeerto oo wanaagaaga lagu arkayna maad qaban hadal qabyaalad ka baxsan oo aad waddanka u tidhi oo aad runta kaga sheegtay dhacdooyinkii dhacayeen ka soo sheekeeyena in adeerow ma jirto musuqna ninkaa qasada dowladda hungurigu ka hayo isagoo bannaanka jooga ayaa tahay waxaan dadka u sheegayaa oo kaloon iyana isaguna uu ogyey ilaahayna ogyey anna aan ogyey inuu cabdikariin isagoo hargeysa joogo tijaabiyey xamar inuu kursi ka doonto oo uu hungureeyo xidhiidha samaystay oo ilaahay ugu ogyey oo lagu yidhi wasiir baan doonaya lagu yidhi laguma hayo wasiire waxaanu ku haynaa safiir uu yidhi safiir qaadan maayo ku haddaan wasiir laysiinayn hungurina ninkaa xamar ka raadinaya ee hadduu maanta helo qaadanaya weeyaan been kama samaynayo waxaan leeyahay cabdikariin war in adeero sidaada meedhul dhacaaga hubso dadkana ha u wada qaadanin carruurtan aad u khudbadaynaysaad u sheekaynayso ee adigoo isjabinayo faraha taagtaagaya sida macallin arday u xaraysantoo kale ha u qaadin dadku inuu wada yahay hadalkaaga qiimaynayaan adigay ku yaqaanaan taariikhday hayaan wax walba way ogyihin wax badan baan hadalkayga afkayga u diidanay inaan ka hadlo oo aanan rabin laakiin intaas kugu filan baan leehay halla waxa aan kaa sheegay ilaahay baan la hortegayaa inaan midh beena ku jirin waxaan leeyahay ardaagii haddii alla kugu roon yahay aad ka soo jeeday nin buu sharaxday adiguna isku filan inaad tahay baad sheegtay ood u sharaxantahay facebook dee facebook iyo ardaagin isku daawanaynaay waa haddii alla kugu roon yahay dadku waynu arki doonaa dadkuna maanta inaanad haddii alla kugu roon yahay mas-uul ahayn intii hore ku taqaanayna dee way garanaysaa hadalkaaga iyo khudbadaada inta maanta ku aragtayna intii maanta ay ka doosamayna adaa isbaray markaad ammaankoodii ku soo duushay